Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa maanta waxa uu dib u habeyn ku sameeyay golihiisa wasiirada. Ra'iisul wasaaraha ayaa dhimay tirada guud ee golaha wasiirada oo markii hore ahaa 28 xubnood, halka haatan uu ka dhigay 20 wasiir oo kaliya. Waxaana u soo bandhigay baarlamaanka dalka Itoobiya. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay muhiim u arkaan dhimistan uu ku sameeyay golaha wasiirada ayna muhiim u tahay isbeddelka uu ka wada dalka Itoobiya muddadii xilka hayay ee 7 bilood. 20 wasiir ayaa 10 ka mid ah waxa ay yihiin dumar, waxaana ka mid ah Caasha Maxamed oo loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga. Caasha ayaa noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee wasaaradda gaashaandhigga qabata taariikhda Itoobiya. Wasaaradda Nabadda ayaa noqonaysa mid ka mid ah wasaaradaha cusub ee dalka Itoobiya iyadoo loo magacaabay afhayeenka baarlamaanka haatan ee Muttariat Kamil. Wasaaraddan cusub ee nabadda ayaa ku soo aadaysa xilli dalka Itoobiya ay ka dhacayeen isku dhacyo ku saleysan qaab qowmiyadeed. Axmed Shide ayaa loo magacaabay wasiirka maaliyadda, wuxuuna horey u ahaa wasiirka isgaarsiinta isagoo bedeli doona Abraham Tekeste. Waa markii ugu horreysay ee qof Soomaali ah uu qabto wasaaradda maaliyadda ee dalka Itoobiya. Sidoo kale Axmed Shide ayaa ah guddoomiyaha xisbiga dowladdeegaanka Soomaalida, waana halka wasiir ee Soomaalida ku matala golaha heer federaal. Golaha baarlamaanka dalkaas ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyay golaha cusub ee soo magacaabay Abiy Ahmed. Dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay ayaa Itoobiya waxaa ka socday isbeddelo dhanka siyaasadda oo Abiy Ahmed oo hormuud ku ahaa uu ku doonayay in Itoobiya uu kaga dhigo goob u furfuran caalamka intiisa kale. Tan ayaa imaanaysa iyadoo maalmo ka hor uu madaxweynaha dalkaasi Itoobiya Dr. Mulato Teshome uu sheegay in wadamada Midowga Afrika ay viisaha ama dalkugalka ay ka qaadan doonaan gudaha Addis Ababa sanadkan gudihiisa. Absaaq Sheikh Xasan, Somali Cable, Nairobi.